maalinka qiyaamaha banka qiyaama khalaa'iqda marka la soo saarayana xadiid waa kii nabigeennu lahaa calayhi salaatu wasalaam shakhsiga ugu horreeya banka qiyaama marka dhulka laga soo saara bani aadamka shakhsiga ugu horreeya dharka loo xidhi doono waa ibraahim alkhaliil calayhi salaam. maxaa nebi ibraahim loogu xidhay dharka khalqiga banka qiyaamo taagan dad hurti? waxay yidhahdeen culammadu maalintii dabka loo shiday dabka lagu tuurayey ayay qoomkiisu dharka ka saareen baa la yidhi. maadaama maalinkaa ilaahay dartii dharka looga saaray waxa ilaahay ugu abaalguday halkaana in banka qiyaame khalqigoo dhan oo wada qaawan oo wada qatan dharka dhar ugu qurux badan ibraahim alkhaliil isagoo loo soo xidho. laanna shayga uu nebi ibraahim u hurayey ayaa qaali ahaay oo qiimo badnaa waa diin. daedna nebigeennu calayhi salatu wasalaam uu dhaafay ibraahim sidrati lmuntaha rabbigii buu nebigu la soo munaajooday. daedna markaasaa ilaahay soo siiyey salaadaha 5 salaadood markii hore 50 markii dambena 5 baa loo gaarsiiyo la yidhi salaadu waa 5 waqti weeyaan laakiin ajarku waa 50kii salaadood ee ummadaada u gee baa lagu yidhi rasuulkeenna. axkaamta kale oo dhan nebiga dhulkaa loogu keenayey soonka dhulkaa loogu keenay zakada dhulkaa loogu keenay xajka dhulkaa loogu keenay jihaadka dhulkaa loogu keenay axkaamta kale oo dhan nebiga dhulkaa loogu keenay laakiin salaada nebi maxamed isagaa loo yeedho la yidhi adaan kuusoo dhiibanaya hadiyaddaas. marka salaadu waa udub dhaxaadka diinteena islaamka. salaadu diinta islaamka waxay u taagan tahay halka kurka maaragtaana bini aadamku u taagan yahay. laa salaata liman laa tuhuura lahu qofka hadduu soo dahaaro qaadan salaad male buu nebigu yidhi. walaa diina liman laa salaata lahu qofka hadduuna salaad lahayna diin male. walaa iimaana liman laa amaanata lahu qofka hadduu amaano lahayna iimaan male buu rasuulku yidhi. hadduu amaano lahayn iimaan male. waa inuu qofku amaano yeeshaa amaanatu diin iyo amaanatu dunya labadaba. inamaa mawdicu salaati liddiini ka mawdici الraasi cala اljasad macna alxadiid. salaadu diinta islaamka waxay ugu jirtaa buu nebigu yidhi halka kurka sare bini aadamka ugu jiro. meesha qofka islaamnimadiisu ay ka daahirtaana waa salaada weeyaan. salaada wasnigaale nebigeenna isaga loo soo dhiibay. markaasaa siirada waxaa ku taalla saxaabada markii salaada loo keenay waxay idhahdeen xaajaadkaygii o dhan maanta annaga noo qumeen haddee toole. salaada intaanan lagu soo farad yeelin muraad kastay leeyihiin nebiga u sheegan jireen baa la yidhi. laakiin maalintii salaada loo keenay waxay idhahdeen alaan qudiyat xawaa'ijuna annaka xaajaadkayagii khalaas ilaahay waa noo qumiyay yidhahdeen haddee toole. haddii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam micraaj loo qaaday baa la yidhi muslimka micraajkiisuna waa salaada weeyaan. halka qofka muslimku ilaahay uu kaga xidhmo waa salaada weeyaan. haddaad aragto qof muslim oo bilaa salaada waa qof ilaahay xidhiir aan la lahayn bay ka dhigan tahay. xidhiirka hadduu ka maqan yahay qofka muslimka noloshiisana noloshiisoo dhan waxba ma haystay ka dhigan tahay. wax weyn baa ka maqan. xidhiirka u dhaxeeya addoonka ilaahay waa salaada. salaadu waa micraajka qofka muuminka. salaada waxa weeyaan waa halka qofka qalbiga muuminka ku raaxaysto. wajucilat quratu cayni fi salaa baa nebigu yidhi meesha indhahayga iyo qalbigaygu ku raaxaysto waa salaada buu rasuulku yidhi. salaada marka la aqiimayana nebigu wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal yaa bilaal kacu salaada inoogu raaxee. fanuxaafid cala asalawaat salaadaan xafidaynaa. hadday salaadu inoo hagaagta bay culimmadu leeyihiin diinta inta kale o dhanna waa inoo hagaagi. lidaalika zamankii dadku wanaagsanaayeen salaada ayaa ummadda loo hagaajin jiray. salaadu waa halka qofku ilaahay kaga xidhmo weeyaan. qaar waxay ku dadaalayeen salaada inay helaan ruuxdeeda iyo dhadhankeega 20 sano usoo daalayeen.
نصلي صلاة ذات الخشوع والخضوع صلاة برينا أبدكنا دمركنا صلاة برينا أهلنا صلاة برينا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صلاة مركي النبي قال أمري وحل يري صلاة أمر أهل هذا وقرمة ومركي النبي أقل دي سينتو مري وحل قوتو نبي أقل ذلك سوى يبيم ويانه قوت اليوم ونبي كواي ريريسي سقو مرغيس ابو مسكيت كسو نقدا ليري قران كان marka ilaahay ku soo dajiyay salaada nabiga waxa lagu leeyahay halkaaga salaada amar salaad waa maxay waa maftaha arsaaqada lagu helo weeyaan noloshaada hadda doon inay ku fududaato salaada wanaadke arsaaqadu xiriiray ka baxda hadda doonaysa salaada ku dadaal صلاة النبي قمت وتوصي صحابي مرة اللي مركو النبي زمن جيسي وقف سوء إسلامه لبش يقول النبي وقف كبراي سدو قف لها يقول حلم لها يسدو قف لها يبري لها صلاة يدعاء النبي قبراي صحابة ديس صلاة تكو مساجد كنتو دحفريستو سدوتو كان يا النبي يقول جري صلي فإنك لم تصلي وركالي تكو ما تكن كل على صلاة هذا نمر لبعض وكل شيء صلاة بلا طمأنينة يتكني هذا النبي يقول ما تكن كل علي هذا كل علي بوكي إلى الصحابي قيل هذا مركي الدنبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تما قال صلاة يبر هذا ده النبي يقول صلاة دي ببرئ كوكلا النبي يقول يمدو يدي صلاة مركان تكنا يا رب جاي محان ويدي استقبلي الشيخ سن الله وبريا مركان النبي يقول وحاتر على قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني إله ودم جاي قداف أو إيه نحريس أو إيه هنوني أو إيه أرزاق أرزاق هذا النبي يقول دم بيسي إنك دعاءنا مع ما تورث يا وحن عنا وهري الدنيا لا وهريس لأن قلبك وحى كوين آيات دعاء ذو بدنيسا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماشوا النبي كعباريك وعاتر على مرقة دعاء سنة يسدد إله دنبك قداف إله إن حريس إله يهنوني إله يرزاق دنبك أنقل إنه ayaa khayr badan iyo nicmad badan oo xagga alla nooga iman lahayd naga xanibe ogaada laana dunuubtu markay badato ay badato waxay noqotaa xujub innaka iyo naxariista ilaahay bana kala qarisaa baa leeyahay dunuubtu marka dambe lidaalika dambi dhaafuu nabigu yidhi horta dambi ilaahay weydiiso inuu dembigaaga dhaafo naxariisna ilaahay weydiiso hidaaye ilaahay weydiiso deedna arsaaqada ilaahay weydiiso cali iyo faatimo nabigu intuu kiciyo habeenkiiba odhan jiray ميانا تكني كعو تكدا صلاة الليل قيس كيس إلهي بو كل حداي صحابة إلهي بو كل حداي فقراء إلهي بو كل حداي مسكيتكو صوق لي لأنه حارك دعاء سنة يولا إله الصبر يسي صبر مرقاب النبي يقول كم بلايا إلهي ويدي ستي إلهي عافية ويدي سبو كي هذا نقول دافع كوكالو أركو دعاء سنة يولا اللهم إني أسألك تمام النعمة مرقاب النبي يقول ما هي تمام النعمة مرقاب يا رسول الله ما يعيشك تمام النعمة وحويان إلهي إنه نار كابت باديو جنن إلهي كقود دافو هذا نقول دافي كوكلا دعاء سنة يواركولي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مرقاب النبي يقول وردعاء هذا باهد هذا إلهي وشيغو البابين السبض بعد الغفور سل حاجتك أبو كيل قد استجيبت دعاؤك حاجة هذا إلهي وشيغو وشيغو باهد هذا دعاء أتكو دعاء سنيسو إيا كلمة أتكو فرفرتي البابين السبض ونبي يكون فرتي برسولكم يا ذا الجلال والإكرام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام دعاء أعمال وحاو نبيغو أمدا أوسيي وفكست هلكو جوغو إلهي وكذا حرمي كراي يسوون عنا وباهم با دعو يا حي يا قيوم كدو عيش
يا أرحم الراحمين كد عيش حسبي الله ونعم الوكيل كد عيش لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كد عيش أدعي سوى تي أنبيض أي مشاكل قال لسو درسوا النبي والبوك قبح يا قراك اللي نقول شاكل افتحوا الفرج يونس عليه السلام في بطن الحوت في 3 ظلمات وحي لهيك قصوا صار دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إبراهيم عليه السلام دعادي إلهي وضبك كقبت باديي حسبي الله ونعم الوكيل غزوة بدر وغزوتي فيصل الله دعدي وياه حقي باطل قال له كلا صاري دعادي نبي محمد وكنت عيسني يا حي يا قيوم بيهيد أيوب عليه السلام حنونك 18 سنة هيي وحاو كنت كقبحي يا أرحم الراحمين بو كقبحي سونا أكبر سبب أي قرآن كل نوش يا لكن عنده قرآن كاللغوار كي الله ينسيه أكبر سبب دعاء أنبياء صلاة قيام الليل قرآنك كريمك إنك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته سورة البقرة خواتم تيدا هي سورة الفاتحة مرق النبي الله سودجي وعلقوا يري أبشر بنورين أوتيتهما لبدا النور بملقا كوسدا يا بشارة يسو لبدا سورة آمن الرسول ملك بكلي الله سودي بو أرلدك يعني مالنتاس ورهدية دا انتين لأكتها ولا ليال ملك الباب السماد ولا هاي وقار الله فريب رسولك ملك با أرلدا ما أنت لو سودي بو لو سودجي ملك ما تكور أرلدا ما يمن بالي ملك يبا نبي السلامي أبشر بنورين أوتيتهما لما نور إلهي كوكو ديقى بشارة يسو حرف كمد إلهي كما ويدستد مراد كاقا إلا وحال خير إلهي أتكبر ذي إلهي واكو السيايبا لقيولي آمن الرسول يو ها سورة الفاتحة أتقراك وانا أخرينا لكن يقينتي ما ضعيف ها ضعيف ها ضعيف يقين كمزور يقين تاني ما ضعيفة ما أنت إدها وولادة يقول القرآن يقول أخري يقول هل القرآن سارة يقول مركز الشيخ والله يقول قارئها مركز كو أخري مركز سيتا هاي نكي مركز حاكم هلي وحنا القرآن كاقوا أيقا سيدا يقول هذه لا إله إلا الله شيخ إذا حناقو يري ما قرآن كان كوكو أخرنا يا كاقا سيدا ها هذا أنه حر مركز تكاعي إنا الظالمين تكمتها يقول هذه ظالم باتها يقول لأن إلهي بيدي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مربع هدات القرآن كما يقصي دري ظالم باتاي بود ظالم سلامة بودي هذا ما القصد القرآن كما نخرينا مدارس توا نوب بدن إيسا مساجد توا عمر ما إيسا لكن خيرك ويريح بسبب بدنها إن شاء الله وزيادة يا هذا إن شاء الله هذا قرآنك كو خسارة مين إلهي إذنك خاصة بلد كان جون وبلد القرآن وبلد عجيبة جماعة عدد مركيني مدار رجبوت وحيد هذا سيدا مقدشو وإن حافظ المدارسها كفرنا حفظ القرآن قرآن كاس واحد بدن بإلهي نقليل اليوم هذا بركة هكو الله برينو أدو القرآن هيستسيدو عبصور مركز سيد إلهي غيرك وقع عبصور صاحب القرآن بابته ودواء قرآن هدو قرآن كو يقين لا يحي أدوك ودنبوك لجاه قرآن صحابي جماعة دواتي رير قالي ويما دانا مرتقلين ويديستين مرتقات كيبا اللو ديدي رير كوليقو كيبا هبينكي قنين أيا قنيني وحبا قنيني markaas cilaaj loo raadiyo dawo waa la waayay cilaajkiisii markaa bay yiraahdeen dadkii tuulada deganaa nimankii xalay martaqaadka aan u diidnay waa kuwa banaanka degane iyo kabalo dawo
laga hel ha loo tago amiirkii jamaacadda markii la yidhi odaygii baa wax naga cune uu dhimanayaa noo daweeyo dawo ma haysaan haa dawo waan haynaa buu yidhi dawo waan haynaa laakiin waa inaad ujuuro bixisaan buu yidhi saxaabadii way is eegeen maxaad haysaa markaasuu yidhi suuratu alfaatixaan hayaa buu yidhi lqur'aan baan hayaa buu yidhi dee ma lacag baad ku qaadanaysaa kharash haa waan ku qaadanaynaa soo iyaka waa martiqaadkii noomay diidin haa qur'aankaasi waa ku dawaynaynaa buu yidhi ilaha idinkii markaasaa loo keenay way ku tufeen qur-aankii waa kacay ninkii uu bogsaday goosmo dhan oo adhiyaa la siiyey markaabay isku qabteen way bannaan tahay ma bannaano waa bannaan tahay ma bannaano way soo kaxeeyeen madiinatalmunawara yimaadeen markaabay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebigu waa inii xalaal weeyaane anigana qaybtayda iga siiya buu rasuulku yidhi qur-aanku waa dawo ka lagu akrinaya laga yaabaa inuu yaqiinsanayn qur-aanka isagu laakiin kee yaqiinsanaa war kee baa yaqiinsanaa kan akrinaya qur-aanka yaqiinsanaa inuu yahay kalaamullah dawo inuu yahay qur-aanku hadduu qur-aanku yaqiintiisii helo kalsooni hadduu qur-aanku helo bay culimmadu leeyihiin waxaa adduunka yaalloo dhan waxba qur-aanku u arki maayo hal aayadoo qur-aana adduunyada waxa jiro dhan ku filan bay culimmadu leeyihiin kal hore markii halkan aan ijtimaaca kal hore xanuunkan hargebkana la sheegsheegayey ayaan sheekh culammada magaalada kamid a buuqanay markaasuu waxaa la sheegsheegayo uma nadara ku filan buu yihi uma nadara intaasaabaa ku filan buu yidhi subxaana allah yacni kalsoonida iyo yaqiinta uu hadalkaa u lahaa annagii bayna saamaysayba aayadda qur-aanku maalintaas kalsoonida uu u yidhi hadalkaas si dhab yar welibana waxaa la sheegsheegayo aayaddaa yar baaba ku filan buuna waxa dhanba kala tuuraysa buu ku leeyahay ilaahay kalsoonida haynoo soo cesho fa ducadaas qur'aankii baan haynaa ducadii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysanayey ayaa inoo qoran laakiin yaqiin baa loo baahan yahay maanta yaqiin cilmigu yaqiin buu u baahan yahay cilmi qur'aanku yaqiin buu u baahan yahay waa inaan baranaa qur-aanka oon ubadkeenna qur-aanka barnaa oon guryaheenna qur-aanka ku akrinaa aayadaha suuratulbaqara ugu dambeeya 3 habeenoo isku daba xigta buu nebigu yidhi aqal laguma dhex akriyo haddii lagu akriyo aqalkaa shaydaan ma soo galo buu rasuulku yidhi qur-aanku shaydaanku aqalka ka saaraa qur-aanku dadku noolaynaya mujtamacu qur-aanku noolaynaya aqalku noolaynaya saa darteed waa inaan noqonaa dad qur'aaniyiina oo qur-aanka ilaahay ku kalsoon oo qur-aanka ku dhaqmaya wixii qur-aankuna amray wanaagana ha la imanno waxa uu qur-aanku naga reebena ha ka reebtoonno wixii qur-aanku xalaaleeyey ma aamana bilqur'aan baa nebigu qur-aanka ma aaminin ma rumayn kee wixii qur-aanku xallile ninka aanan xalaal u arkin wuxuu qur-aanku xarimay ninka aan xaaraan u arkinna qur-aanka ma aaminin buu rasuulku yidhi qur-aanku shareecaddu waxa waa xalaal hadday tidhahdo waa in la raaco walow khilaaf alcaqli shayga ha noqdo waxaas waa xaaraan sharcigaa xarimay ka dheerow dariiqaas waa xaq ilaahay buu kuu dhaweynayaa raac dariiqaas waa baatil ilaahay buu kaa dheeraynayaa ka dheerow waxaasi waa wanaago ilaahay baa kugu jeclaanaya samee waxaasi waa sharo ilaahay baad kaga dheeranaysaa ka dheerow saxaabadu macaasida waxay uga baqayeen sida inaku dabka holcaya aan uga baqno dabka holcaya si aad uga cabsatid si lamida ayay macaasida teeda yar uga baqayeen asxaabta rasuulku leanna macsiyadda waxay u arkaan iyaku inay ku dhex jirto ilaahay cadhadiisii lidaalika qur-aankaasi wuxuu ina amrayaa markaa inaan khalqiga ilaahay adduunya dusheeda inagula nool aan kula dhaqana maartaan dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan xusnu lkhuluq waa halka diinta islaamka ugu sarraysay dadku ay soo eegtaan waa kii nabigeennu lahaa bucidtu liutamima makaarima alakhlaaq aniga adduunka waxaa la ii keenay buu nebigu yidhi akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dadka noloshooda aan ku dhammaystiro akhlaaq wanaagsan qofka muslimka mu'minka waa inuu ahaadaa qof akhlaaq wanaagsan oo akhlaaqdiisu ay ummadda diinta islaamka ay jeclaysiiso madiinat almunawara markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam reer madiina nebigu wax kale uma sheegin xuquuqda ay muslimiintu dhexdooda isku leeyihiin ayuu hadalkiisa ka bilaabay markuu masjidka dhex fadhiistay
يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بالسلام. يا أيها الناس ضدوا dhexdiina salaanta faafiya buu nebigu yidhi, qaraabadana xiriiriya, masaakiintana quudiyo cuntaysiiya, habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada, jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaana buu rasuulku yidhi. xadiistaasi waa xadiistii markuu madiinat almunawara uu nebigu yimiday bii'adda islaamiga, dowla islaamiya markuu nebigu madiine ilaahay uu ka siiyey mujtamac, waa xaadiistii nebigu uga dhigay dowladdiisu inay ku shaqayso. salaanta faafiya macnaheedu waa maxay? salaantu waa duco, salaantu waa maxabo. haddaad dadka muslimiinta salaanta la dhex martid ummadoo dhan baa ku jeclaan. waa duco, adaa ummaddii u ducaynaya, ayakuna ducay kugu jawaabayaan. 100 qof baad u ducaysay, 100 qof baa adigana kuu soo ducaysay. mid laga yaabaa weli ilaahaya in ducadiisa lagu aqbalo. limaada? assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مركا الله لهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا الله لهي. نبت قل يدي إلهي، هي نحريستي إلهي، هي بركات إلهي تشال هذا عليك السلام تفدين سوى السنة. لكن جوابته ولا الكاو كسيني وواجب ويان إلا إسقعان قادنا وسنة. هذا قعان قاد كيان لقا وسواسيي sida yahuudu ay sameynaysa ha sameeyno, sidan ha oranine salaamu calaykum iska dheh. waad ma fahamteen? ya sida dadka kale ay sameynayaan may waxaad tidhahdaa salaamu calaykum waraxmatullah, laanna sidaa nebiga way ka sugnaatay sal alla alay wasalam. soo maahay? way ka sugnaatay nebigeenna inuu salaanta afkana uu ka qaaday, gacantana uu kor u taago, intaba israaciyey. in yar nolosheenna haddaan nebi maxamed ku khilaafno ogaada ilaahay gargaarkiisu ummadda u ka rafacmaya. maalinta ummaddani sunnaha nebiga ay cagba cag u saartana waxaad ogaataa nusradda ilaahay baa soo dhowaanaysa. khilaafa sunna nusraddaa rafacmaysa, sidii ghaswatu uxud. jamaacu nebigu soo qaaday, jabal rumaad buu nebigu dul joojiyey, halkaa jooga buu yidhi. annagaa dagaal ka galayna macrakadda, inagu dhabarjebinta naga ilaaliya, halkaa jooga, ha soo dhaadhicina. dagaalkii markuu dhacay ayaa gaaladii markiiba la jebiyey. jamaacaddii meesha uu nebigu dhigay waa iskhilaaftay. waxay isku khilaafeen baa la yidhi, damac baa galay qaarkood. damac waxay arkeen gaalada wixii ay ka yaaceen oo la guranayo, seefihii, duruucdii, fardahoogii. markaas amiirka jamaacaddu leeyahay hadhaadhicina, halkaa joogayno. markaasay qaar leeyihiin dagaalkii uu dhammaado waa la jebiyey gaaladii, dhadhaadhici. markaasuu hi may nebigu jooga buu leey, jooga. hay nebigu jooga wuxuu u jeeday bay leeyihiin dagaalkii uu dhammaaday, hadduu dagaal socdo waa dagaalka dhammaa khalaas. markaasuu yidhi amiirkii leey may jooga. halkiiba markaa jamaacaddii way iskhilaafeen, qaar baa soo dhaadhacay, qaarna meeshii bay ku hadheen. khaalid ibn alwaliid oo maalinta gaalada ciidanka farduulayda hor socday ayaa arkay, dhabarjebin buu ku sameeyey muslimiintii, xagga dambuu kaga yimid. intii yarada buurta ku hadhay uu ka mid ahaa cumayr binu sacad, soo mahayn? cumayr binu xamaam alansaari saxaabigii, iyo anas binu nadar, iyo cagtuu mariyey oo shahaada ilaahay ka siiyey. muslimiintii iyo khaniimadii iyo wixii laga yaacay guranaysu xagga dambe ka geliyay ciidankii. ilaa 70 saxaabada ka mid a ku dhintaan halkaa, nebigana maalinta lagu dhaawaco, dhig lagaga daadiyo. sababtu waa maxay baa la yidhi? waa khilaaf. amarkii nebiga ayaa ragga qaarkood ijtihaadi ay u jebiyeen baa la yidhi, way la noqotay inuu sidan ahayd bay arrintu ula ekaatay, deedna nusraddii baa kor looga qaadaa la yidhi. waxaa halkaa ummadda la tusinayaa, haddaad amarka nebi maxamed aad jebisaan, walow haynila jooge, gargaarka sidii la rabo u heli maysaan. kullamaa dadku ay sunnaha nebiga ka dheeraadaan, nusradda inaga rafacmaysa, nolosheena barakaadka ka baxaya. mar kastoo muslimiintu sunnaha nebiga ay raacaan, barakaadkii raxmadda iyo nasriga ilahay baa soo dhowaanaya. lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam madiinat almunawara markuu yimid waxau ka bilaabuu yidhi
صلاة تحذينا فافية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عبد الله بن عمر بن الخطاب وحديث كان النبي كو عمل فلايا أيو رنجري سوق أنتي مقالة مدينة مران أيو تدخل صلاة الله صدح مرجري نيل رنجري طفيل يا كوير يا ابن عمر وأن السوق حيسام علي والبسوق بعد نور جساء بدي عدنا ما بايع عيسد مالنا فريسين ميسد بدي عدنا يبسن ميسد محاد نور جساء مالنا فريسين وحنا بر وعرنا نغدو من أجل السلام سلامتا عندك لدح سعودان وسوك الله نابو كيدي السلام عليكم الله سوك الله هنا سلامتا المسلمين تاع السلام إنه إلهي بنا نقول دم بدافع يا إلهي بنا نقول نحرسنا يا وواحد مسلمين تسكت جعلانا يا مرقاب النبي يقول لي أطعموا الطعام ذكر عنتسيو قضية حديث يقول دخل كيسو وهو مقالة المدينة كبا بيه متقانا صبور لمدي حديث يقول دخل كيسو هذا النبي يقول قوته ولا يعيدها maalintii xadiiska reer Madiina ay maqleen baa la yiri magaaladii Madiina qof miskiin oo saayil oo faqiir oo laga waayay at'amu at'am dadka cuntaysiya wasilu al-arham rahimka xidhiidhiya salatu ar-rahim hada qaraabada xidhiidhisid fawaa'id salatu ar-rahim kulana waxa kamida cimriga Ilaahay ku dheereen ku barakayn من أحب أن يبسط له في رزقه ويسع له في أثره فليصل رحمه لك جعل بنبي يري إن أرزاقات الله واسعيو عمري كان الله بركيو قرابة ساحر ريب رسولك يري حرير قرابة هذا زيارة صلاة كسوحد دعوة كسوحد مساجد كسوحد حرير نقالك وحرير ماها أخلاق ونكسب قرابة الله وحده أخلاق ونكسب لن تسعوا الناس بأموالكم ذاتك مالكم قد قاري ما يسابوا النبي قيدي لكن ذاتك وحال لقود دقايا ولقود قد قارا أخلاق ونكسب إيه وجه فرنان تبو رسول قيدي وجه فرنان وجه قاقوا هفرنان هذا القرابة هذا حرير السد لما ذابت إيه النبي قوب اللنق علي إن أرزاقتنا إلهي قوة سعين ما تقول لي إن أرزاقته وحالنا وعريري أرزاقته وعريري قلي وامحي نوال بوحولي عنوها النولادات كالو حبيك ما قلي أنا أقول أقل في عنها هندستو ذاتك كلنا حبيك ما قلي وحانا يستو أنا إسكالي ذاتك كلنا هي حبيك ما قلي يحي في عنها أنا يقول في عنيهين ذاتك كلنا هي يلكدو مسلم كعينك أماها مسلمكو وينو نغدا قف نفتيسا أنول ماها وينو على قف ومدى أنول ومدى واحترايا مالك وحكو ترايا علمك وحكو ترايا عقلك وحكو ترايا حوقيس وحكو ترايا دقاليس وحكو ترايا هدو ومدى واحتروا لهينا وينو على قف شركيس ومدى مالك لفرديا إلا الشرية خير ببنالك والله أبو ريه خير كاقا هداد ومدى قارسين ويدو والشر كاقا ومدى مالهم كلا فريسو صلة الرحم أرزاقتنا ويزيادة سابو نبي قولي عمرنا ويكوب دارين صلة الرحم وحاو نبي قولي قفك قاطع الرحم كالرحم كي سكويا جنة ما قلبوا رسولك يري قاطع الرحم كو جنة ما قلبوا فقرابتنا نحريرنا هدي لهاي دقالة ونسيينا دقالهنا وكغور هينينا هدي دقالة أن أمدا كدقنا أنان هيسنا أخلاق ذو ونكسب أن أمدنا كدقنا إن شاء الله هذا أخلاق ذو ونكسب نبينا عليه الصلاة والسلام قرابة ديسا علي با كمدا فاطمة كمدا رضي الله عنه هبينكم نبيكم مرجلوا رجل كعوتوا كذا ميانا تكني وحي نبيك هدي الله كانوا خديجة نبي قد رجل إهلا ديدي إيا قيلوين كيد إيا قرابة ديدي إلا عايشة نبيك كو اعتراض على نبي الله دمر البخديجة مر هذا الهيساية خديجة بد هذا الهيسا مر والبيت كأنه واحد من الدمر كلام أدوك إن لقوا أبوري يدا مويانه مرقابو نبي خديجة ما قاعد يسد بكين عايشة يدا إلهي وبدك يقسي تلقى مركي يقوين يدا حريرسي يدا حولي يقول بحنيسي يدا وبدك إلهي يقسي صدا سيهي ما أنت كده بس عايشة وحيتري مرقان أركي النبي قو أرنتا كحناقي
maalintaa intii ka dambaysay nebiga agtiisa khadiijo kuma hadal qaadin bay tidhi. uu ka warhayay nebigu khadiijo ciddii ku tacalluqsanayd oo dhan uu nebigu xidhiidhinayay sal allahu alay wasalam. akhlaaqdaa wanaagsan ee qiyamkaa wanaagsan ayay diinteennu ina amraysaa inaan noqono qof khayrkiisa ummaddu uu gaadho, sharkiisuna ummadda ay ka nabad gasho. waa kii nebigu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum, kiinayniigu khayr badan iyo kiinayniigu shar badan maynii kala sheegaa? saxaabadu noo sheeg bay yidhahdeen ha kiinayniigu khayr badan waxa weeyaan waa ka khayrkiisana la rajeeyo, sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho. kiinayniigu shar badanna waa ka khayr aan laga rajaynin, sharkiisana ummaddu ay ka nabadgelin. khayruu leeyahay ummaddu kama rajayso, sharkiisana ummaddu kama nabad gasho. kayniigu khayr badanna waa ka khayrkiisa ummaddu rajaysa mar walba. waa nin khayr badan, waa nin macruuf badan, waa nin la isfahmi karo, waa nin wixii kaa gala aad ka heli kartid, waa nin maaragtaan dadnimo fiican, waa nin ehel jecel, waa nin ixsaan badan. khayrkiisa ayaa mar walba la rajeeyaa. waa nin ummadda waxtara ninkaas, waa nin ninka daalimka gacanta qabta weeyaan. sifaadkaasuu nebigu sheegay baan ku sifoobaynaa. waxaan ku dadaalaynaa oo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka muslimiintu walaalkaa mar walba aad u ducaysaa. waa ducada ugu istijaabada dhow buu nebigu yihi, walaalkaa oo ku ogeyno loo duceeyo. la xidhiidhiyo, la ziyaarto, la booqdo. salaaddii subax nebigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi ayaa waa bariistay isagoo sooman. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo miskiinna soo quudiya. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo aasna ka soo qayb gala. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo qof bukana u soo duceeyo soo ziyaartay. abubakar baa gacanta taagay. khisaalkaasi ninka u kulantaa janno gale buu rasuulku yidhi. waa gallin hore oo keliya ayuu abubakar sooman yahay, aasna ka soo qayb galay, qof bukana u soo duceeyey, miskiinna soo quudiyey. khayrkay u kala tartamayeen iyagu. waxaa kaloo ku dadaalaynaa inaan noqono dad lilaahiyiina. lilaahi waa maxay? ikhlaas. cibaadadaada ikhlaas, salaadaada ilaahay dartii,